الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسو دوادا qodobada wararka janalkeena dayni latifi ugu door koron waxaana ka mid noqonaya al-shabaab oo la sheegay in ay ka baxeen deegaano ka tirsan gobolka Mudug maamulka degmada Mahaday oo baaq degdeg ah soo saaray maamulka Xamar Jajab oo u digay ganacsatada degmadaasi madaxweynaha Jubbaland oo la kulmay wafdi ka socda IOM-ta madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ku dhawaaqay howlgal wada furis ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo gaaray dalka Faransiiska madaxweyne Farmaajo oo shir kaga qayb galaya magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya lafta garan oo ballanqaad u sameeyay shacabka degmada Waajid Turkiga oo bilaabay musaafiriinta jihaadiyiinta reer galbeedka daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena janalka Dayni TV ugu door korora intaan ugu galin qodobadaas oo faahfaahsan marka hore waxaan idinka codsanayaa inaad nagu soo biirtaan janalka subscribe saartaan sidoo kale gambalaalka aad furataan si aad uga mid noqotaan daawadayaasha ugu horeeya ay wararkeena u soo dhacaan haatan ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan al-shabaab ayaa la sheegay inay ka baxeen deegaano ka tirsan gobolka Mudug al-shabaab ayaa waxa la sheegay inay isaga baxeen deegaano hoostaga degmada Xaradheere ee gobolka Mudug halkaas oo ay ku sugnaayeen dhowrkii sano ee la soo dhaafay saraakiil ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya ayaa warbaahinta dawladda u sheegay in al-shabaab ay isaga baxeen deegaanada Deeqlo iyo Maraale oo hoostaga degmada Xaradheere ee gobolka Mudug kadib markii ciidamada dawladda iyo kuwa Mareykanka ay deegaanadaasi duqeymo ka fuliyeen saraakiisha ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay wadaan dhankooda dhaqdhaqaaqyo ku saabsan sidii al-shabaab uga saari lahaayeen deegaano iyo degmooyin ay kaga sugan yihiin koonfurta gobolka Mudug si kastaba ma jirto warar madax banaan oo xaqiijinaya warkan ka soo yeeray saraakiisha ciidamada dawladda ee deegaanada Galmudug oo ku aadan in ay shabaab ka baxaan deegaano hoostaga degmada Xaradheere maamulka degmada Mahaday ayaa baaq degdeg ah soo saaray gudoomiyaha degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe Mudane Axmed Xuseen Afrax oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dadkii ka barakacay fatahaada webiga Shabeelle uu ku saameeyay degmada iyo deegaanada hoostaga ay haysato dhibaatooyin badan oo dhanka nolosha ah gudoomiyaha ayaa tilmaamay in dadkaasi ay soo wajahday hooy la'aan cunno yari iyo caafimaad daro isagoona guddiga gurmadka fatahaadaha ee ay magacaawday xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu baaqay in dadkaasi ay gargaar degdeg ah soo gaarsiiyaan maadaama dawladda Soomaaliya ay arintaasi u wakiilatay guddiga Axmed Xuseen Afrax gudoomiyaha degmada Mahaday ayaa sidoo kale hay'adaha gargaarka iyo qurbo joogta ka soo jeeda degmada ugu baaqay in ay ka qayb qaataan gurmadka lagu badbaadinayo nolosha dadka danta yar ee ay fatahaaduhu ku saameeyeen degmada iyo deegaanada hoostaga oo qoysas badan ay ka barakaceen degmada Mahaday iyo deegaano badan oo hoostaga ayaa waxa saameyn xoogan ku yeeshay fatahaada uu sameeyay webiga Shabeelle iyadoona dadkii ka barakacay ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah maamulka Xamar Jajab ayaa u digay shacabka ama ganacsatada degmadaasi gudoomiyaha degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir Guhaad Sheekh Xasan ayaa shacabka degmada gaar ahaan ganacsatada uga digay in ay waxyaabaha aan u wanaagsaneyn bilicda iyo caafimaad qabka dadka ay ku shubaan wadada iyo goobaha kale ee danta guud tiro dhowr jeer ah oo aan nadiifinay waxay ku soo baxday si fiican oo nadiif ah balse wuxuu culays ka yimid dhanka goobaha ganacsiga oo nala garan waa maadaama habeenkii aan nadiifinayno in iyagana maalintii ay ka ilaaliyaan wasaqda ayuu yiri gudoomiye Guhaad ugu dambeyntii gudoomiye Guhaad Sheekh Xasan ayaa bulshada degmada Xamar Jajab ugu baaqay inay lagama maarmaan tahay in la ilaaliyo deegaanka iyo bilicda intaba hadalkan ayaa gudoomiyaha degmada Xamar Jajab waxa uu ka sheegay xilli maamulka degmada ay wadaan olole nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicda xaafadaha kala duwan ee ay ka kooban tahay degmadaasi madaxweynaha Jubbaland ayaa la kulmay wafdi ka socday qaramada IOM-ta waa hay'adda qaramada midoobay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa kulan kula qaatay wafdi ka socda hay'adda IOM-ta
oo uu hogaaminayo Master Methkin oo IOM-ta hogaaminayay wafdigeeda ka socday ayaa gacanta ku haysa xarunta DDR ee dhaqan celinta ee Kismaayo ku taala, taas oo lagu dhaqan celiyo lagu abaabinayo xubnaha ka soo baxay Al-Shabaab. Waxaan rabnaa inaan yeerayno khatarta Al-Shabaab, ma rabno in dhalinyaro Soomaaliyeed intaan ka badan xabad ku sii dhintaan ayagoo fikrado qaldan aaminsan, sidaas daraaddeedna waa in loola dhaqmaa sida ugu habboon ee lagaga dhaqi karo fikradaha xagjirnimada ay aaminsan yihiin ee ay dadka ku gumaadayaan, ayuu yiri Axmed Madoobe, madaxweynaha Jubbaland, mar uu ka hadlayay kulanka uu la qaatay madaxdaasi. Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in isla xisaabtan dhab ah ay ku sameynayaan barnaamijkan, ciddii ka shaqeysa iyo deeq-bixiyayaasha dhaqaalaha ku bixiyana si waxa la qabanayo uu u noqdo mid Soomaalida anfacaya. Al-Shabaab ka soo xaroonaya waa inay arkaan waxa markay duurka ku jiraan ee ay dagaalamayeen ay aaminsanayeen iyo waxa ay ka aaminsan yihiin dowladnimada ee ah wax diinta ka baxsan, wax ka bedelan. Sidaas daraaddeedna waa in loo helaa culimo diin ahaan ugu sharaxda farqiga xagjirnimada iyo dowladnimada si ay u fahmaan qaladaadka ay ku jiraan uguna tanaasulaan dadka layntiisa iyo fikradaha xagjirka, ayuu yiri madaxweynaha Jubbaland siduu hadalka u dhigay. Sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa ku dhawaaqay howlgal wada furis ah. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa booqasho ku tegay degmada Waajid ee gobolka Bakool, ayaa halkaasi kaga dhawaaqay howlgal wada furis ah. Isaga oo goob fagaara ah kula hadlayay boqolaal shacab ah ayuu sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ay bilaabayaan howlgallo lagu furayo wadooyinka u go'doonsan Al-Shabaab. Runtii howlgallada waa ay bilowdeen ama waa ay bilaaban doonaan oo ciidamadu waa ay u diyaar garoobeen. Waxaana idin sheegayaa reer Waajid, safarkeena xiga ee aan Waajid ku imaanayno jidka ayaan ku soo safri doonaa kuna laaban doonaa, ayuu yiri madaxweyne Laftagareen. Kulamo kala duwan ayaa la filayaa in saacadaha soo socda uu la qaato maamulka degmada Waajid iyo qeybaha kala duwan ee bulshada si uu u dhageysto baahiyaha ay qabaan, maadaama dhowr sano degmadaasi ay go'doon ugu jirtay Al-Shabaab. Sidoo kale madaxweynaha ayaa ballanqaad u sameeyay shacabka Waajid. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sheegay in dadka ku nool degmada Waajid ay haystaan dhibaatooyin kala duwan oo badi kaga yimid dhinaca Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in guud ahaan degmada Waajid laga go'doomiyay cirka iyo dhulka, isla markaana waxyaabaha ay u yimaadaan ay qayb ka tahay in ay go'doonka ka qaadaan. Isaga oo sii hadlaya ayuu sheegay in xubno wasiiro ah oo u xilsaaran in ay u kurgalaan xaaladda dadka ku nool degmada Waajid iyo dhibaatooyinka haysta, isla markaana uu rajeynayo in wax badan laga qaban doono dhibaatooyinkooda kadib markii ay ka soo warbixiyaan shacabka degmada Waajid dhibaatooyinka ay u gudbiyaan dadka reer Waajid wasiirada aan u xilsaarnay, ayuu yiri. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa gaaray dalka Faransiiska. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hogaaminayay oo ay qayb ka yihiin wasiirada amniga iyo waxbarashada ayaa gaaray magaalada Paris oo ay uga qayb galayaan shirka sanadlaha ah ee madasha nabadda Paris oo maanta furmaya. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa inta uu socdo shirka madasha oo looga hadlaya xal u helidda dhibaatooyinka ka jira daafaha caalamka, waxa uu kulamo gaar ah la qaadanaya qaar ka mid ah madaxda kala duwan ee ka soo qayb galaysa kulanka. Marka uu soo dhamaado shirka oo soconaya muddo 3 maalin ah ayaa Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre wuxuu u safrayaa magaalada Brussels ee xarunta Midowga Yurub si uu kulamo ula qaato hoggaanka cusub ee Midowga Yurub. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir kaga qayb galaya magaalada Nairobi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Nairobi kaga qayb galaya shirka dadweynaha iyo horumarka oo ay soo qabanqaabisay Qaramada Midoobay. Shirkan uu hogaaminayo Sanduuqa Qaramada Midoobay ee horumarinta dadka UNFPA ayaa lagu jaangooynayaa
qorshayaasha loo dhan yahay ee dhinacyada horumarka iyo halbeega sanadlaha ah ee heerka qaaradeed iyo heer caalami ee hiigsiyada xasiloonida iyo horumarka. Wafdiga madaxweynaha waxaa horudhac u sii ahaa diblomaasiyiin iyo khubaro ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya kuwaas oo la sii qaabeeyay dhigooda dalalka ka qaybgalaya shirweynahan qorshayaasha lagu falanqeynayo iyagoona gudbiyay qodobada hortabinta u leh shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed. agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada Soomaaliya Mudane Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa tilmaamay muhiimadda uu dalkeena u leeyahay shirkani maadaama hay-adaha qaramada midoobay ay kaalin mug leh ku leeyihiin dib u kabashada iyo horumarinta dalkeena. dowladda federaalk Soomaaliya waxa ay mudnaan gaar ah siinaysaa madal kasta oo looga arinsanayo horumarka iyo iskaashiga maadaama dalkeenu uu u baahan yahay maalgashi iyo garab istaag. shirkan waxaa si gaar ah diiradda loogu saarayaa arrimaha awoodsiinta haweenka iyo kaalinta dhalinyarada ee hogaaminta iyo horumarka si loo gaaro hadafyada horumarka ee joogtada ah kuwaas oo ahmiyad weyn u leh dalkeena. wafdiga madaxweynaha ee ku weeliyay shirka dadweynaha iyo horumarka waxaa ka mid ah wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Marwo Fawziye Abikar Nuur iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka Mudane Nuur Diiriye Xirse fursada loo yaqaano. ugu dambeyntii dowladda dalka Turkiga ayaa bilowday musaafiriinta jihaadiyiinta reer galbeedka. Turkiga ayaa musaafirisay jihaadi Mareykan ah toddoba kale oo Jarmal ahna waxaa la filayaa inay ceeriso dhammaadka toddobaadka sida uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha. hal jihaadi oo ah dagaalyahan argagixiso Amerikaan ah ayaa laga musaafiriyay Turkiga kadib markii uu dhameystay hanaanka ayuu yiri Ismaaciil Atakili sida ay ku warantay wakaaladda wararka dowladda ee Anadolu. sidoo kale barnaamijka safarka ee 7 qof oo u dhashay Jarmalka ayaa lagu soo gabagabeeyay xarumaha musaafiriinta waxaana la musaafirin doonaa 14 November ayuu yiri. Turkiga ayaa sidoo kale musaafirin doona 11 qof oo Faransiis ah oo lagu qabtay dalka Syria sida uu sheegay afhayeenka. waxa uu intaasi ku daray in sidoo kale ay musaafirin doonaan muwaadiniin u dhashay Denmark iyo Ireland. Turkiga ayaa dalalka reer galbeedka ku dhaleeceysay inay diideen in loo musaafiriyo muwaadiniintooda ka mid ka noqday kooxda Daesh ee dalalka Syria iyo Ciraaq. waxaa musaafirin doona 315 ma jirto sabab aad ugu baxsan kartaan waan idin soo diri doonaa ula macaamila sida aad doontaan ayuu yiri Ismaaciil Ataki. ma cadda sida Turkiga u awoodi doonto in ay musaafiriso muwaadiniinta ay dalalkooda kala laabteen dhalashada inkasta oo xeerka New York ee 1961 uu sharci daro ka dhigayo in dadka laga dhigo dal la'aan. haddana dhowr dal oo ay ka mid yihiin Faransiiska iyo Britain ayaa sharcigaasi saxiixin waxaana kiisas arrintan la xiriira ay dhawaanahan bilaabeen dagaal sharci oo dheer. Britain ayaa dhalashada ka qaaday in ka badan 100 qof oo la tuhunsan yahay in ay ku biiraan ururo argagixiso oo caalami ah. daawadayaal guud ahaan warkii aad kala socoteen channelkeena Daynila TV halkan ayaan ku soo gabagabeynaynaa intaan warka xiga kulmi doono anagoo isku duwan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.